haddaan u diyaar garowno agoonta inaan daryeelno waataan shalay idin dul joognay waataad nala duubateen dareenka wanaagsan iyo waataad ficil nagu darteen dollarka noo dhiibateen ilaahay dartii waataad sadaqa u diyaariseen xoolaad nala siiyey waana la soo dhaweeyey dhul baa nala siiyey maxay ahayday aad iyo aad hawshan maana qaban karnay haddayda idinka ahayn siduu dawguba ahaa ammaanadii lama dayicin dugsigii waa nagaa dhisno indhihiina ku daawateen ma aragtaan wixii naloo dhiibay inaan dhisnay waxaan idiin sheegaynaa gabdhuhu waxa loo dhiibo way ka meel keenaan siduu dawguba ahaa ammaanadii lama dayicin dugsigii waa nagaa dhisno indhihiina ku daawateen madaxweynaha deegaankow daarahan noo dhismiyo dadaalkan noo hirgalay allah daa'imkaa sokadii adigee dowladdaada ayaa ka dambeeya khayrka hadduu dalku nabad ahayn nabadgelyadu waa muhiim ilaahay inaad ku shukridaan waa muhiim haddii kale waa laydinka ceshanayaa maana soo galneen waxna kamaana qabaneen haddaan nabadgelyadiisa la sugaynin qofku ha gaajoodo daroo bannaanka haddaan lagu dilaynin nicmada ilaahayba siiye weeye ilaahay uga shukriya hadduu dalku nabad ahayn haddaydan noo diyaarin dariiqana aydan furin miyaan dugsi furi lahayn ma furi lahayn dugsi haddaydan idinku noo ogolaanin annagu waanu kuu ducayn madaxweyne adiga iyo tiimkaagaba allah ha ku daaya waayo allah dembigaa ha dhaafo dariiqa wanaagsan iyo allow diinta kugu hogaamiyo dadkaagana kuu hagaaji jannadii lagugu deeq awalan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha Mustafa oo suuragal ka dhigay ilaahay baa suuragal ka dhigay howlahan laakiin markuu yimid maamulka isbeddelka wata ee asaga oo madaxda ka yahay wuxuu noo suurageliyay inaan ku dhiirano inaan dadkaanada wax tari karno aanan isku keeni karno annakiya ayaga maskaxdanada aan midayn karno wax aan isku dayi karno suuragal buu arrintaas siyaasadda dowladdiisa ka dhigtay marka waxaan rabaa madaxweynahaas inaan dhahno waa mahadsan tahay hal marna aan si cabsino keligii khaas u ah waxaan rabaa aan iyagana u mahad celiyo reer afdheer jasaakumullahu khayr gabar iyo rag iyo dumar iyo ragba barnaamijkaasaan noola qaadateen waxaan iyagana jiri doonaa shahaado sharaf la bixin doono oo la siin doono dadka reer afdheer ee dadaalka dheer ka qaatay iyo kuwa reer mataqaanaa Somali State oo ayagana qaybta ka qaatay mashruucan asaaskiisa iyo dhagax dhigiisa iyo howlmaridkiisa waan u mahad celinaynaa iyagana ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkaas ha ka abaalmariyo ajirkooda iskuulkan waay aan u asaasnay waxa loo asaasay waxa weeyaan in community-ga afdheer iyo kuwa ku hareeraysan ee muslimiinta ah Soomaaliyeed wax badan lagaga bedelo waxaan rabnaa in uu community-gan wax weyn ka bedelo isbeddelka isaga aana sida ay dawladda deegaanka u bilowday baan qayb ka nahay halkanuna maanta ka bilaabmay insha Allah taala isbeddelka afdheer maanta bilaabatay afdheer indhaha inay kala qaado oo istaagto oo danteeda iyo ka shaqeyso horumarkeeda yaaran ma dadkeedana u istaagan insha Allah taala xukuumadda gacanta ku haysa oo madaxweyne Mustafa hogaaminayo nawaan ugu mahadnaqaynaa dadaalka ay geliyeen nabad iyo horumar iyo bulsho walaalo ah oo wax qabsata waxaa kale oo u mahadnaqayaa kun goor gabdhaha isxilqaamay oo ah kurkii iyo macallinkii guriga iyo ammaanadii dhabta ahayd ee shacab bani aadamku lahaa oo isu xilqaamay inay guriga macallin u ahaa inay ummadda oo dhan kaasmata bixiyaan dadaal sameeyaan aad baan ugu mahadnaqaynaa hay-adda dalaalu sadaqa waxaa weeyaan taariikh bay samaysay taariikhda ay samaysayna waa inay noqoto mid aynu horey u wadno u riixno dhammaanteen oo aan ka hirgelino gobollada iyo meel kasta oo aan joogno gabdhaha waxaan leeyahay dalaalu sadaqa ilaahay subxaanahu wa tacaala camalkiina khaalisan liwajhi illaahi allah ka dhigo ilaahay khaalisan liwajhi illaahi tacaala ilaah ka dhigo muwaafaqana allah idin siiyo ina allaha la yudiicu ajra man axsana camala laa shaka fiih ilaahay wuu og yahay waxaan leeyahay governorka ilaa iyo halkaas ka soo safray arrintan u yimid ilaahay ka dayici maayo subxaanahu wa tacaala ducooyinkii ay gabadhii walaashay ahayd u ducaysana waxaan ilaahay uga baryayaa inuu aqbalo waxaan kaloo si gaara ugu mahadinayaa oo qaatay tacliinta dalku inay isbedesho oo bilo aadanku ay bedesho madaxweyne Mustafa Maxamed Umar
competition baa lagu jiraa gobol walba ma aha keliya hergeelle ma aha afdheer ma aha haddaanu nahay gobollada kilalka oo dhan waan dagaalamaynaaye waagi hore si kale loo dagaalami jiray hadda tacliim baa lagu dagaalamayaa barbarkay ka baxda oo bakeela qeylin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aqoontan aynu maanta isugu nimid oo mas-uuliyiintii innaga deegaankeenna ugu sarraysay oo madaxweyneheenna horkacayo iyo walaalaheen iyadan reer gaarisa iyo reer kenya oo iyaguna inagala soo qayb galay hal shay unbay ku tusinaysaa arrintaas oo dhan oo waxa weeye qiimaha aynu siinayna aqoonta unbayna tusinaysaa inaan dhammaanteen aynu ahmiyadtii ugu dambaysay inaynu siinayna aqoonta marka waxa weeyaan wixii laga shaqeeyaana way midho dhalaan marka waxaan rajaynayaa ammaankii hadduu ilaahay ina siiyey shacbiga waxaa la yidhaahdaa iyo maamulkoodu isku dareen markay noqdaan waxaa sahlanaanaysa inay wax wada qabsadaan marka madaxweynuhu ka murgayo waxbarashada aqoon uu isagu leeyahay wasiirku sidoo kale yahay shacbigii waxaa sahlanaanaysa iyo xukuumaddii inay isla fahmaan sidii aqoonta loo dhisi lahaa walaalayaal maanta waxqabadka iyo nimcooyinka aan haysanno sida hortayba la sheegay waa wax aad u qiimo badan waan garanaynaa wixii aan soo marray marka inaan ilaahay ugu mahadnaqno aadna aan ugu ducaysanno inuu ilaahay noo xafido ayaa loo baahan yahay dugsigan xaruntan iyo xeradan quruxda badan waxaan leeyahay anigu dadkii wax ka soo qabtay igu horeeyaan howlwadeennada hay-adda dilaalu sadaqa aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin ilaahay jazaa'igooda ha badiyo